sheekhu sheegay cabdinaasir مثلا magahan iyo waxa ku saabsan iyo xeerarka inuu ka dejisanay waa islaamnimadii aynu wax kala dhex wadno markii la iswacdiyo waxa la isu sheegay waa jiraan hadda reer Soomaaliyeed oo cuqaashoodu inta shuru qabatay isu yimi marka masaladu taagantay haddaad tiraahdo saama lagu fulinaya waxa laga yaabaa inaad dadku aqbalin ama dad badani waxaan caadayno ahaan jirtay waa la wadaya ku yiraahdaan laakiin iyadoo balaba jirin bay shiriyeen reerkoodii way isugu yeedheen culamadoodii iyo waxgaradkoodii iyo waayeelkoodii way isu yeedheen war waxa diintu ma ogola maxaynu ka yeelaba la isweydiiyay maanta aan xeer ka dejisan daynu hore xeerar u soo lahayn de kuwa ragumba soo qoray waxay doontaba ha noqotay qalad iyo sax waxay doontaba ha noqotay waxaynu maanta ka yeelaa waxay go'aansadeen wixii ilaahay inoo soo dejiyaan ka yeelo way ku dhaqeen reerkina wuu wada qaatay odayna kuma qasbin cidana kuma qasbin waa tala reer gaadhay oo intuu reer tashaday ay gaadheen inay qaataan wixii ilaahay u jiday la yiraahdaa agoonka yar Soomaali mesela dilku ma dhamaado sababuhu dhamaan way xeerka ma kamida inanka yar أبيه للدليل أما ولكن للدليل وضيالته فرستين هذا إنك وعفيني سجوا حبل ويدينين أما الله تشوبي مكتب مركز لقاتين اللي يراد قلبه حالات بكوسه هجاجي أبيه ما لبه حالات بكوسه صبر هذا سوما هون سنين تو أما كان جاريه أما مد عدل مرة وكهله وبسويه waxana aanad u dhamaan weyday iyo dilkan u dhamaan waay wax weeyaan de qofka waynu chuchubno qofna ma ina sabirsiinin laba mid un bay ahayd inaynu qofka qisaas u ogolaano oo yiraahdaa bahinkaas waa dilay hal loo dilo oo qisaas aqbalo iyo wuxuu ku sabray inaynu siino nidhaano war boqolka geela ka hayso waad iska baraariya cafi dadka oo marka uu arko nin aabihi cala la qal hawaaye waxa haystaa لكن قال ريركو قيبسداي isaga xoolo uma aha قال ريركو قيبسداي isaga xoolo uma aha wuxuu ku sabraa marka meesha ma yaalin waxan aanadu inooga dhamaan weydaan waxaan wax ka saaraya xeerkeenan xeerkan aynu ku dhaqmayna inuu yahay waxan aanadu dhamaan weyday qoysna u sabri waayay ya afartan sano ka hor mid la dilay uu leeyahay reer hebel baa dilay reerkeegi marka laba mushkilad taagano kii reerka ninka ka dilayna wuu dulmiyay tolkiisii magta ka qaatayna waa dulmiyeen labada qoloba waa ku dulmiyeen kii abaha dilayna ku dulmi wixii laga qaatay kuwii ku diidayna dayana ku dulmiya agoonkana laba jeer buu markaa dulmay marna reerna abihii buu dilay reer xoolihiisii buu qaatay marka waa laba jeer oo dulmiya idan laga yaabaa dadkiina halka fadhiya iyadoo sida loo qaybsano inaydan ugu timaadeen oo inaydan xeerarka idinku dejin laakiin de rag baa tiina xeerka waa la bedeli karaa reerkii xeerka lahaana waa loo talin karaa waana la shirin karaa diinna waa qaadan karaa maan arag anigu dad Soomaaliyeed oo meel isugu yimi oo wanaag ka shiray oo isku diiday maan arag dadku hadduu wanaag ku shirayo oo markuu shiro isugu yimaado لكن يدو نبتو تاغنتي هدات شرسو waa mushkilad iyadoo nabadu taagantay roonta inta shirisay inaad tiraahdo war waxa bari maxaynu ka yeelaa xeerkeena hore ka soo aha diintiina saasay sheegtay maxaynu ka yeelaa inay isweydiisaan dadku u qaadanaya kaasoo qodobka hore uu tilmaamay sheekhu qodobka labaad ee sheekhu tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa jira erayo Anas ibn Malik uu leeyahay khudbad kasta oo nabigu